السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan taariikhda xidiga lagu magacaabo Arjen Robben oo markaa u dhashay xulka wadanka Holland ayaa maanta markaa ku soo qaadan doona taariikhda xidiga maalinimada Jimcada markaa aan ugu hadalno haddaba xidiga lagu magacaabo Arjen Robben ayaa markaa taariikhdiisa maanta ka sheekeyn doona xidigani magaciisa uu buuxa waxa la yiraahdaa Arjen Robben wuxuuna dhashay 23 January 1984 wuxuuna markaa jira 37 sano wuxuu ku dhashay meesha lagu magacaabo Bedam oo markaa ku taala wadanka Netherland haygiisa waxaa lagu sheegay 1.8 mitir 5.12 inji ayuu markaa xidigani yahay haatan wuxuu ka tirsan yahay markaa naadi lagu magacaabo Rangers wuxuuna markaa u qaataa nambarka 10aad 1989 ilaa 96 nadiga lagu magacaabo Bedam oo markaa ka ciyaarta wadanka Holland ayuu markaa u ciyaarayay 1996 ilaa 2000 nadiga lagu magacaabo Rangers oo markaa haatan uu ciyaaro ayuu markaa u ciyaarayay xidigani naadiyaasha goolasha markaa uu dhaliyay 2000 ilaa 2002 nadiga Rangers ayuu markaa u ciyaarayay 46 kulan markaa wuxuu u dhaliyay 8 gool 2002 nadiga PSG oo markaa iyana ka ciyaarta wadanka Holland ayuu markaa u ciyaarayay 56 kulan wuxuu u dhaliyay 17 gool 2004 uu ciyaarayay nadiga lagu magacaabo Chelsea halkaasi oo wacdaro aad markaa u muhiimsan uu ka muujiyay xidiga lagu magacaabo Arjen Robben 67 kulan markaa wuxuu u dhaliyay 15 gool 2007 ilaa 2009 nadiga lagu magacaabo Real Madrid ayuu markaa ku biiray 50 kulan oo u saftana wuxuu dhaliyay 12 gool 2009 nadiga lagu magacaabo Bayern Munich ayuu markaa u ciyaarayay 201 kulan wuxuu u dhaliyay markaa 99 gool nadigani ayuuna markaa u dhaliyay goolasha inta ugu badan kubadiisa cagta 2020 nadiga lagu magacaabo Rangers ayuu markaa ku biiray 2 kulan oo u saftana wax gool markaa uma dhalin ninkani 1999 xulka wadanka Netherland 15 jirada ayuu markaa hal kulan u saftay wax goolana uma dhalin 1999 ilaa 2000 waa Netherland xulka markaa 16 jirada ayuu markaa u saftay 11 kulan wuxuu u dhaliyay 4 gool 2000 xulka wadanka Netherland 17 jirada ayuu 3 kulan u saftay hal gool ayuuna markaa u dhaliyay 2002 xulka wadanka Netherland 19 jirada ayuu markaa u saftay 8 kulan 2 gool ayuu u dhaliyay 2003 xulka wadanka Netherland ayuu markaa u ciyaarayay 20 jirada ayuuna markaa u ciyaarayay 8 kulan wuxuu u dhaliyay hal gool xulka waaweyn wuxuu markaa si toos ah ugu saftay 2017 wuxuuna markaa u ciyaaray 96 kulan ayuu u dheelay 37 gool ayuuna markaa u dhaliyay taariikhdiisa kubadda cagta inta ugu wanaagsan markaa wuxuu ku soo qaatay nadiga Bayern Munich nadiga Chelsea ayuu markaa u soo ciyaaray naadiyaasha waaweynna waxaa kamid ah Real Madrid Bayern Munich PSG ayuu markaa u soo ciyaaray xidigani haatan markaa wuxuu ciyaaraa nadiga lagu magacaabo Rangers haddaba maanta taariikhda xidiga oo maalinimada Jimcada aan soo qaadano waxaan halkaasi ku soo gabagabeyn doonaa taariikhda xidiga lagu magacaabo Arjen Robben oo maanta markaa aan ku soo qaadanay intaan ku kulmi doono mid lamid ah taariikhda xidiga Jimcada aadan hadduu alla yiraahdo nabadgelyo